السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار سيدة قيمة يقدرين تمضون وعيد مالين السبت جولاي ناي سيديد يطبان عيد لبدا كون يليحي لباتنكا qodobada naga soo gaadhay warbaahinta wargeyska city maanta wararkaanina idina waxa kamida xafiiska golaha arrimaha islaamka ee gobolka city ayaa guud ahaan degmooyinka iyo sidoo kale tuulooyinkaba ka wada duruusta kala duwan ee xilliyada xagaaga ay culimada kala duwan bixinayaan waxaana kamid ah oo si habsami leh uga socda masjidka tawfiiq ee ku yaala magaalada Shiniile culumtaasi kala duwan oo lagu baranayo tafsiirka culumta ahkaamta iyo sidoo kale culumta kale carabiga ba waxaana ka faa'iideysanaya arday kala duwan oo barashada dhigata nidaamka dugsiyada quraanka kariimka ee magaalooyinka gaar ahaan magaalada Shiniile culumtaasi ay bixinayaan waxa kamid ah kuwa culumta diiniga sida tafsiirka iyo sidoo kale culumta kale cashirada kale la xiriira waxaana hawshaasi ay guud ahaan si habsami leh uga socotaa masjidka tawfiiq ee magaalada Shiniile isla markaasina waxa ka qayb qaadanaya oo ka faa'iideysanaya ardayda madaarista kala duwan ka kala timid ee magaalada Shiniile xafiiska golaha arrimaha islaamka ee gobolka city ayaa wadadaalo xoogan oo xilliyada xagaaga uu ku bixinayo cashiradaasi kala duwan isla markaasina ardayda lagu barayo inay ka faa'iideystaan culumta diiniga isla warbixinteena ayaan ku guda jirnay Itoobiya ayaa waxa ay hay'adaha amniga ee Itoobiya ayaa la sheegay inay lafdhabar u yihiin jiritaanka madaxbannaanida iyo horumarka dalka Itoobiya oo leh taariikh dheer ayaa wajahaya caqabado badan oo gudaha iyo dibadda iyadoo ciidanka difaaca qaranka ee booliska federaalka hay'adaha sirdoonka iyo hay'adaha kale amniguba ay door muhiim ah ka qaataan ilaalinta madaxbannaanida dalka hay'adaha ayaa hormuud u ah sugidda xuduudaha dalka iyo ilaalinta amniga shacabka waxayna sidoo kale ka shaqeeyaan horumarinta aqoonta iyo adeegsiga tiknoolajiyadda iyo ilaalinta anshaxa shaqo si ay ugu adeegsadaan dastuurka iyo danaha qaranka waxay si joogto ah uga hortagaan khataraha ayaa la yidhi argagixisada dambiyada xuduudaha ka gudba falalka kala duwan waxaana Itoobiya ay hadda ku howlan tahay dhisidda ciidamadaasi kala duwan isla markaasina si ay gacan weyn uga geystaan kobcinta dalxiiska iyo xoojinta goobaha dalxiiska taariikhiga Itoobiya si nabad ay ugu booqdaan ayaa la yidhi dalxiisayaasha caalamiga taasoo kordhin karta dakhliga iyo lacagaha qaalaad ee dalka soo gala hay'adaha amnigu waxay ilaalinayaan kaabayaasha dhaqaale sida biyo xidheenada weyn ee Itoobiya jidadka tareenada xarumaha korontada iyo kaabayaasha dijitaalka si looga hortago waxyaalaha iyo burburka iyadoo ciidamada kala duwan oo gudanaya waajibaadkooda ayaa si firfircoon uga qayb qaadanaya ololaha horumarineed ee dalka sida barnaamijka beerista geedaha adeegyada iskaa wax u qabso taageeridda wax soo saarka beeraha dadaalada lagu xaqiijinayo sugnaanta cuntada marka ay sidoo kale dhacayaan masiibooyinka dabiiciga iyo kuwa bini'aadamada sababaya hay'adaha amnigu waxay hormuud ka yihiin samata bixinta howlahaasi horumarineed iyo gargaarka bini'aadanimo isla warbixinteena ayaan ku guda jirnay sidoo kale banaanbaxa ayaa maanta ka dhacay caasimadda dalka ee Addis Ababa kulaha nabadda iyo isbeddelka Tigray ayaa ku baaqayay shacabka Tigray laga dulqaaday yidhaahdo caburinta isla markaasina si buuxda loo dhaqan geliyo heshiiskii nabadda ee Pretoria banaanbax nabadeed oo lagu soo horjeedo waxyaabaha ay ku tilmaameen caburin iyo cadaadiska jira deegaanka Tigray ayaa lagu qabtay fagaaraha masqal ee magaalada Addis Ababa goluhu waxa uu sheegay oo si joogto ah uga hadlay ku tilmaamay waxa uu yeeray heshiiska nabadda Pretoria marka in la si habsami leh loo hirgeliyo iyagoo shacabkuna ay si habsami leh uga qayb qaadanayaan goluhu waxay ka midaysan yihiin si deynta xabsi siyaasadeedka iyo sidoo kale waxa la sheegayaa in sidoo kale guud ahaan ay codsanayaan in la hirgeliyo oo ay ka codsanayaan dowladda Itoobiya in Tigray loo hirgeliyo heshiiskii nabadda waxayna goluhu ku baaqayaan dhinacyada saxiix heshiiskaasi iyo bulshada caalamkaba inay taageerista hirgelinta heshiiskaasi shacabka Tigray u helaan nabad iyo xasilooni ugu dambeyn waxaa loogu baaqay shacabka Tigray inay ku noolaadaan gudaha
ugu dambeyn waxaa loogu baaqay shacabka Tigreed ee ku nool gudaha iyo dibaddaba inay ka gudbaan aragtida kala duwanaanshaha siyaasadeed isla markaasina ay u midoobaan sidii ay u deegaankooda u horumarin lahaayeen. guudaan akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa warbixinadiinii koobnaan idinka haynay warbaahinta wargeyska City. haddaad nagu cusubtay fadlan nagu soo biir, haddaad la joogtana waad ku mahadsantahay la joogistaada tan ee kulanti dambe. ammaan Allah.